waa kuma James Swan. James Christopher Swan waxa uu ku dhashay 10 December 1963 magaalada Washington DC ee dalka Mareykanka. waa diblomaasi iyo sargaal sare oo ka tirsan muddo badan adeegga wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. xaaskiisa Daphne Michelle Tatus dhalasho ahaan waa Kenyan, labadoodaba waa dad xag jir ah oo ku adag Kiristaanimada conservative. James Swan ayaa October 2008 ilaa June 2011 wuxuu ahaa safiirka Mareykanka ee Djibouti xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. waxa uu noqday safiirka aan rasmiga ahayn ee Mareykanka u fadhiya Soomaaliya. bishii Agoosto 2013 waxaa loo magacaabay safiirka Mareykanka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. dhammaan dalalkaasi ayaa looga bedelay qas iyo inuu ka dalbaday laaluush lacageed si uusan ugu gudbin warbixin foolxun. James Christopher Swan soddonkii bishii May 2019 ayaa loo magacaabay ergeyga UN-ka ee Soomaaliya. waa shaqadii ugu horeysay ee Soomaaliya uu ka qabto diblomaasi Mareykan ah oo ka tirsan qaramada midoobay una qaabilsan tan iyo sanadkii 1994 ilaa 96 markaas oo ciidamada Mareykanku qayb ka noqdeen qalalaase baahsan oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Mr. Swan ayaa xoogga saaraya sidii wadamada Soomaaliya ka taageeray dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda, amniga iyo ciidamada ay uga joojin lahaayeen taageerada dhinac walba leh ay siinayaan, midaas oo ujeedada uu ka leeyahay ay tahay si ay Soomaaliya uga dhicin doorasho ugana bilaabato fowdo hor leh oo cusub. dhinaca kalena James Swan ayaa midowga Afrika ku cadaadinaya inay ciidamadooda nabad ilaalinta AMISOM soo faarujiyaan inta badan furimaha halista ah, taas oo uu uga gol leeyahay in meesha gabi ahaanba ay ka baxdo nidaamka dawladeed ee Soomaaliya si loo gaaro in madaxda iyo siyaasiyiinta Soomaaliya kulamo loogu qabto meel ka baxsan Soomaaliya. fariintu waxa ay tahay waxaa jirta Soomaaliya aan xasilnayn, doorasho kama dhacayso. tani waxay dabada ku haysaa dhinacyada uu kala fogeeyay ee ku kala aragti duwan nidaamka doorasho ee dalku aadayo. Swan waxa uu hadda qayb ka yahay kala fogeynta madaxda Soomaaliya, isagoo dadaal xoog la saaraya sidii loo sii kala fogeyn lahaa madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe. waxayna taasi muujinaysaa inuu isticmaalayo awoodda qaramada midoobay. James ayaa sida la wada ogyahay booqday horaanta sanadkan magaalada Garowe, halkaas oo uu kulan dheer kula qaatay madaxweynaha Puntland Siciid Dani, halka isla bishii Febraayo uu kulan kale Kismaayo kula qaatay Axmed Madoobe. booqashooyinka kala duwan ee Mr. Swan ayaa ahaa kuwo aad looga shakisnaa. James ayaa Axmed Madoobe iyo Siciid Dani ka dhigtay labadiisa garab ee uu ku gaarayo hadafkiisa sidii xaalad cusub Soomaaliya looga abuuri lahaa loona joojin lahaa gabi ahaanba doorashada. James Swan ayaa kiiska badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya rabay in si hoose oo diblomaasiyada lagu dhameeyo, taasoo gadaal ay ka riixaysay xaaskiisa Daphne Michelle Tatus oo iyada qudheedu ah sargaalad ka tirsan dawladda Kenya, fursadna u aragta inay adeegsan karto James Swan si uu arrintaasi gacan weyn uga geysto, laakiin aan u dhicin sidii ay qorsheynayeen.